waxaynu kaga warramaynaa cadaabka. ilaahay baana subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa si balballaadhan ugu soo bandhigay. haddii wakhtiga loo qoonday aynu isku dayno nusuusta cadaabka iyo abwaabteeda ku saabsisan inaynu akhrino ee qur-aanka ku soo arooray oo keliya waxaan isleeyahay waa ku filantay. sidaa awgeed waxaan isku dayayaa bacdi almuqtatafaat ama inaan mowduuca intaan yaro qaybqaybiyo meel walba wax yar ka tilmaamo uun. ugu horreyn waxaan leenahay cadaabku waa xabsiga ilaahay subxaanahu wa tacaala cidda caasida ee diidda ee ka gaalowda uu ku duleeyo, waana meel khasaare iyo khizyi lagula kulmo. ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa basharka abuuray, kownkanay ku dhex nool yihiin oo dhan isagaa abuuray, waxaasoo nimca buu siiyey. waxa la weydiiyo keliya lagu itixaamay inay ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celiyaan. ilaa waad ku mahadsantahay waxa aadna siisay inay yidhaahdaan oo ah inay dariiqiisa raacaan markaasi. hase yeeshee markii alle subxaanahu wa tacaala waxaasoo dhan siiyo haddii la isindhamaro oo weliba ilaahay rasul soo diray digaysa oo waxa dambe dadka uga digaysa, waxa ilaahay uu samaystay ciddii diidda dariiqiisa inay raacdo. markaa mahmaa uu dunida soo boodboodo, ilaahay waa xaliim sabuur, waa ku dulqaad badan, laakiin markuu qabto cidina kama baxsato. meel buu ugu talagalay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku cadaabo. saa daraaddeed ilaahay wuxuu ina leeyihi fii suurati ali cimraan aayaadka dhaadheer ee u dambeeya waxaa ka mid ah rabbanaa inaka man tudkhil innaara faqad akhzaytah wamaa lildaalimiina min ansaar. allow ciddii aad naarta geliso faqad akhzaytah, idan waa daaru lkhizyi. naartu waa meer lagu dulloobo, waa cid dullowday, daalimiintuna gargaar ma helayaan. ilaahay subxaanahu wa tacaala naartaasi waxaan u samaystay buu leeyahy inaan marka hore idinku cabsi geliyo. qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahliihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin lahum min fawqihim dulalun min annaar ومن تحتهم ذلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. إلهي وحليه سبحانه وتعالى يسوع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا هذا يا واحد كتر هذا ضدك إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم كوا قول دريستي إن في أهل بوا يقول دريستي ما لنت قيامك كوا قول دريستي ويان ألا ذلك هو الخسران المبين. خسارة حقي واكاسون وانا خسارة عد. كواسي وحي إليهم با إله إليهم من فوقهم ذلل من النار ومن تحتهم ذلل كر إيه هوسب النار بكلي. هذا با إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى ذلك يخوف الله به عباده. والمسألة داس إلهي سبحانه وتعالى ويدك عبسي قلينيه إيه يا عبادي فاتقون با إله إليه war addoommahayga iga cabsada. ilaahayna abuuraa wuxuu leeyay war waa idin cabsi gelinaya. cadaabka aan ka warramayaana waa min baabi takhwiif ee iga cabsada baa alla leeyay subxaanahu wa tacaala oo keligay caabuda baa alla leeyay. ilaahay naartaasi wuu inooga digo wuxuuna leeyay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum